السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaa kaaga muuqda Camtasia waxyaalaha ay u qaybsanto waxa waa record screenka inaad recording ku samayso, record voice, PowerPoint iyo import. marba waxay ku xiran tahay waxa aad samaynayso. hadda waxaan isticmaali doonaa aniga wax lagu magacaabo screen recorder. kaliya markaad siiso wuxuu sameynayaa, wuxuu ku tusayaa computerkaada inta uu ka sameyn karo recording. halkaasuu tagayaa sida kugu muuqata. waxaad sadgaraynaysaa size-ka, waxaad sadgaraynaysaa maaragtay recording aad leedahay. kadib few minutes wuxuu ku tusayaa, wuxuu ku leeyahay press F10 adaabta riix. kadib is radio, wuxuu ready ku yahay, wuu duubaya. hadda mouse-kaaga waxa la meeshu dhaqaaqa ayuu duubaya. kadib waxaad riixaysaa, haddaad rabto isagaa riixi kartaa oo stop aad dhihi kartaa halkaas. laakiin sidaan professional maahin, waxaa ka fiican inaad samayso wax lagu magacaabo F10. F10 ayaad ku dhufanaysaa. kadib wuxuu soo noqonayaa wixii la duubay sidaas oo kale. waa kaa ujeedaa. markuu cabaar socdaba kadib wuxuu noqon doonaa muuskiga dhaqdhaqaaqaya. waxaad leedahay kadib waxaad arki doontaa markuu meelahan gaaro hadda in maaragtay waxay yeeli kartaa save ama delete. haddaad u baahnayn delaydaad leedahay. waxaa lagu deyni doonaa warningkaas. waxaa lagu dhihi doonaa ma delete garaynaynaa waxaan, are you sure? yes aad leedahay. marka waa qaabka sida halkan kaaga muuqataba. waxaan niri marka hore Camtasia markaad isticmaalayso waxyaalahan oo u qaybsantaa. kan waa kabajarkaad samaynaysa, kan waa full screen. kan haddii computerkaaga size-kiisa ayaa u dooranaysa nooc u yahay, nooca u dooranaysa ma fahanti ayaa geynaysa. marka hadduu full screen yahayna full screen markaad tiraahdo sideeday kusoo laabanaysaa. hadda soo la fahantaa umaleyna. haddii camera ku jirto web camera inta isticmaalaysaa. haddii ku jirin inta codkaaga sound cardkaaga nooc u yahay ayaa geynaysaa. aniga nooca haddii igu joogo waxaa waaye high definition. ma fahanta calaamadu waa ina meeshaad joogto. marka taas muhiimadeeda leedahay. kan waa soundka, marna codka waa yareynaysaa marna waa dheereynaysaa qaabka markaa wax duubaysa. kanna waa recording baa ku dhufanaysaa. recording laba siyood ay yeeli kartaa. haddaa mouse ku fiiqdo F9, haddaa keyboardkaaga riixdo is okay waay. oo keyboardkaagaas waxaad ka riixaysaa waxa lagu magacaabo F9. markii aad stop dhahaysana F10 riix. start F9, stop F10. marka waa sida ugu sahlan ee Camtasia aad u duubi karto adigoo isticmaalayo screenka qaadis. marka casharada waxay noqonaa casharo tallaabo oo walaalahii ka faa'iidaystaan meel kastoo dunida joogaan. haddii Camtasia markaa haysata, Camtasia Studio waa barnaamij kuu saamaxaya in aad fiidiyoyada aad ku yarayso. videoga aad telefoonka ku duubto hadda waxaa laga yaabaa 2 gigabyte inuu noqdo. marka Camtasia haddaad kusoo import garayso isagoona kalarka waxba ka bedelin, waxay suubinaysaa inay videogii size-kiisii yaraysa. noocyada kala duwan ee videoga extensionka leeyahayna ayay kuu qabanaysaa. marka faa'iidadeeda waa sidaas. haddaa rabto PowerPoint dhex gelinaysaa, haddaa rabto picture gelinaysaa, haddaa rabto adiga kugu xiran tahay saa u isticmaalaysa. marka ka faa'iidaysi wacan.